السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبada waa salaamantiin kasoo dhawaada barnaamijkeena akhbaaraadka aflaamta inta badan maanta barnaamijkeena isku diri doona qodobada waqti xaadirkan taagan iyo sidoo kale box office-kana qaybaha dambe oo kusoo qaadan doona intaan guda gelin barnaamijka hadda channel-ka cusub tahay subscribe noo saar sidoo kale loobin inaa muuqaalka laga noo saarto bal marka hore saaxiibada waxaan update ka siin doonaa aflaamta oo tigtiga laga daawan doono saaxiibada filimka weyn doon hogaamiye wiilka lagu magacaabo Fakartagiyaan filimkan waqtiga OTT lagu soo fasaxi doono ayaa shaaca laga qaaday filimkan doon saaxiibada waxa laga leeyahay dhankaasi fanka loo yaqaan koolid xaruntood ay tahay Chennai sidoo kale filimkan doon wuxuu noqday blockbuster taariikhi oo noqday sidoo kale wuxuu noqday filimkan lacagaha ugu badan soo xareey oo sameeyay wiilka lagu magacaabo Fakartagiyaan filimkan doon in ka badan 106 kor ayuu saaxiibada qiimaha badan ganacsigiisa hadda maraya sidoo kale meesha ku istaagan soo daabici doona laakiin maanta update ka jira wuxuu yahay filimkan doon waqtiga OTT lagu soo fasaxi doono ayaa shaaca laga qaaday filimkan waxa hogaamiye wiilka lagu magacaabo Fakartagiyaan waxaana tirisha kooxda gaar lagu magacaabo Brianga Arul Mohan sida daraaddeed filimkan waxa gacanta ku dhigtay shirkadda wadda badan lagu magacaabo Netflix sidoo kale bisha nagu soo fadlay tobankeeda ayaa laga daawan doona ogaada filimkan saaxiibada weli tiyaatarada uu saaran sidoo kale ganacsi adagna uu sameeyay in ka badan 106 karoor ayuu ganacsigiisa maray sida daraaddeed hadda 10ka bisha June nagu soo fadlay OTT-ga laga daawan doona barta Netflix ayaa laga daawan doona markaan fiirnay wiilkan lagu magacaabo saaxiibada qiimaha badan Fakartagiyaan wuxuu ku jira barwaaqo dhexda kaga jira maadaama sanadka hore filimkiisa Doctor oo blockbuster u noqday haddana sidoo kale doon wuxuu u noqday blockbuster ayuu noqday sida daraaddeed filimka doon 10ka bisha June nagu soo fadlay ayaa laga daawan doona Netflix kala saaxiibada qiimaha badan ninkii weynaa Baybadol markan waa isbaag uu soo laabtay ninkan sidaan ka warqabno waxa looga bartay taxanaha weyn lagu magacaabo Ashram saaxiibada ogaada filimkan waa musalsal sida laba qayb oo laba xalqa ayaa hor lagu sameeyay sidoo kale haddana waxa u diyaarsan xalqada saddexaad ee tiimka u diyaarsan saaxiibada qiimaha badan filimkan waxa laga daawan doona ama web series kan lagu magacaabo Ashram Chapter 3 waxa laga daawan doona barta loo yaqaan Max Player ayaa laga daawan doona sida hadda shaaca laga qaaday 3 bisha June ayaa laga daawan doona waana jamcada kaabi nagu soo haysa ayaa laga daawan doona ogaada مسلسلkan lagu magacaabo Ashram Season 3 waa filim weyn sidoo kale ninkan Baybadolna aad loo amaano doorkiisa filim lagu magacaabo Jungle Kara ayaa laga daawan doona saaxiibada qiimaha badan barta loo yaqaan Disney Plus hosta filimkan ogaada waxa hogaamiye wiilka lagu magacaabo Abhaydol oo la dhashtay saaxiibada qiimaha badan ninka lagu magacaabo Baybadol ilma adeero waa sidoo kale filimkan waxa tirisho ku gabadha lagu magacaabo Imalisha sida daraaddeed saaxiibada qiimaha badan waxa shaaca laga qaaday in laga daawan doona barta loo yaqaan Disney Plus hosta Disney Plus hosta ayaa laga daawan doona taariikhda markay ku asaysan tahay 2 June ayaa laga daawan doona sida hadda shaaca laga qaaday filimkan wuxuu isku jira sports iyo drama iyo isku jira markaan saaxiibada qiimaha badan soo qaadanna filimkii weyn lagu magacaabo Laal Sinjada inna bacda ma filimkan goosgoos cawaaqib wata ayaa laga soo bandhigay marnaba saaxiibada qiimaha badan niyada kaama jibina ninka lagu magacaabo Emir Perfectionist ama Amir Khan saaxiibada qiimaha badan Laal Sinjada goosgoos ki ugu fiicna abid ee sanadihii ugu dambeeyay daawada ayuu noqonaa maadaama filimkan saaxiibada qiimaha badan goosgooska laga soo bandhigay inna bacda ma sidoo kale hadalhayntiisana waa cirka sare 24 saac asigoo dhameysan in ka badan 20 milyan views ayuu barta YouTube ka sameeynaya saaxiibada qiimaha badan filimkan Laal Sinjada waxa hogaamiye Amir Khan waxaan atirisho kooxda gabadh lagu magacaabo Kareena Kapoor sidoo kale filimkan saaxiibada qiimaha badan waxa laga soo min guri filim laga leeyahay dhankaas iyo Hollywood ka sidoo kale waa filim lagu magacaabo Forrest Gump oo la daawo 94kii ayaa laga soo min guri laakiin saaxiibada qiimaha badan ninka lagu magacaabo Amir Khan tixraac cusub oo limaada inna bacda ma sidoo kale goosgooska laga soo bandhigay Laal Sinjada dhinaca walba ayuu saaxiibada qiimaha badan ka dhameystiran yahay ogaada filimkan saaxiibada waxa la daawan doona 12 August aan ku celiyay 11 bisha August ee sanadkan 2022 ayaa la daawan doona sidoo kale hadda waxa la isku raacay Amir Khan kaliya ayaa soo celin doona sharafta Bollywoodka kalanta maadaama goosgooska laga soo bandhigo qof walba oo sacabto ma saaxiibada dhinaca walba ayuu goosgooskan kan dhameystiran hadda goosgooskan soo daawatan aragtida comment nagu biiri كان صاحبada qiimaha badan waxaan aadi doonaa box office-ka aflaam tiyaatarada saaran iyo ganacsiyada ay sameynayaan isla fiirin doonaa waxaan soo qaadan doonaa filimkii weynaa F3 maalintiisa saddexaad waxa uu qabsoomay saaxibada qiimaha badan filimkan ganacsiga uu shalay sameeyay xuka agdhowya ganacsiga maalintiisa labaad uu sameeyay sida hadda shaac laga qaaday filimkan saaxibada qiimaha badan maalintiisa saddexaad dhankaas iyo Telugu qoliyaha jardaha qaybay share gaara 8.85 karoor ay ka heleen filimkan saaxibada qiimaha badan lagu magacaabo F3 markaan filan ganacsiga uu sameeyay shalay saaxibada qiimaha badan Telugu wuxuu ka soo xariica
canshuurta kor lacag gaarayso 14.15 kor ayuu soo xaray qoliyaha cajaladaha qeyb waxay ka heleen saami gaara 8.85 kor ay ka heleen wadarta guud filimkan saaxiibada qiimaha badan 3 maalmood dhankaasi Telugu wuxuu ka soo xaray canshuurta kor lacag gaarayso 44.40 kor ayuu soo xaray qoliyaha cajaladaha qeyb waxay ka heleen saami gaara 27 kor bar ayay ka heleen sidoo kale filimkan saaxiibada qiimaha badan dhankaasi Karnataka wuxuu ka soo xaray lacag gaarayso 1.80 kor ayuu soo xaray Overseas wuxuu ka soo xaray lacag gaarayso 5.20 kor ayuu ka soo xaray wadarta guud filimkan ganacsigiisa waxa loo yaqaan World Gross dibadda markaan isku darno wuxuu soo xaray lacag gaarayso 58 kor ayuu soo xaray canshuurta kor qoliyaha cajaladaha qeyb waxay ka heleen saami gaara 34 kor bar ayay ka heleen ogaada marka horena filimkan waxa lagu iibsaday lacag gaarayso 63.60 kor ayaa lagu iibsaday soo dhameystir u noqdo waxa laga rabaa inuu dib u soo lacag gaarayso 64 kor bar sida daraadeed darajadaasna waxay kaga dhiman tahay 29.9 kor markuu dib u soo celiyay ayuu dhameystir noqon doonaa iska dhaana filimkan markuu 30 kor dib u soo celiyay ayuu saaxiibada qiimaha badan kaliin hid noqon kara sida daraadeed filimkan haddana ganacsi adag ayuu sameynaa maadaama saaxiibada qiimaha badan kaliya shalayta ganacsi u sameeyo ka agdhow yahay ganacsiga oo hadda sameeyo hoos u dhac waalina muusan sameeynin dhinaca kale saaxiibada filimka wayna sarkaari bari bata hogaamiyka meesh baabu asna filimkan iska qaraawana maalintiisa 18 sidoo kale dhankaas Telugu ayuu ganacsi ka sameynaa markaan fiirna filimkan Telugu 18 maalmo saaxiibada wuxuu ka soo xaray canshuurta kor lacag gaarayso 134 kor bar ayuu soo xaray qoliyaha cajaladaha qeyb waxay ka heleen saami gaarayso 89 kor ay ka heleen hindi inta kale wuxuu ka keenay filimkan lacag gaarayso 6.85 kor ayuu ka soo xaray Overseas suuqyada caalamkan wuxuu ka keenay lacag gaarayso 12 kor bar wadarta guud filimkan ganacsigiisa waxa loo yaqaan World Gross dibadda markaan isku daro 18 maalmood waa lacag gaarayso canshuurta kor 174.75 kor ayuu soo xaray qoliyaha cajaladaha qeyb waxay ka heleen saami gaara 108 kor bar ayay ka heleen ogaada marka horena filimkan waxa lagu iibsaday lacag gaarayso 120 kor soo dhameystir noqdo waxa laga rabaa inuu dib u soo lacag gaarayso 121 kor darajadaasna waxay kaga dhiman tahay almost 12 kor bar markuu dib u soo celiyay ayuu filimkan noqon doona asna kaliin hid ama hid dhameystir ayuu noqon doona sida daraadda saaxiibada qiimaha badan ninkii aan meesh baabu filimkiisa uu iska qaraabanaya bal markaan saaxiibada qiimaha badan shabakada Box Office India aadna sidoo kale filimkii weynaa Volvo 2 inna bacda ma filimkan week indi qurux badan ayuu qaatay sidoo kale saaxiibada shabakada Box Office India waxay shaac ka qaaday filimkan week indigiisa labaad in ka badan 30 kor ayuu soo xaray kaliya filimkan 45% ayuu daro of sameeyay saaxiibada qiimaha badan markaan fiirno filimkan wiiga koowaad wuxuu keenay lacag gaarayso 9.25 kor ayuu soo xaray jimcadii wuxuu keenay 6.25 kor sabtidii wuxuu keenay 12 kor shalayto axadna wuxuu keenay 82.25 kor ayuu soo xaray sidoo kale saaxiibada qiimaha badan week indigiisa labaad filimkan wuxuu keenay wadarta guud waa 3 maalmood 29 kor bar ayuu soo xaray wadarta guud filimkan markaan isku darno saaxiibada qiimaha badan wiigiisa koowaad week indigiisa labaad 9 maalmood ka tirsigiisa la isku daro wuxuu soo xaray lacag gaarayso 119.75 kor ayuu soo xaray iska dhaana filimkan wuxuu soo xaray 120 kor marka hore saaxiibada qiimaha badan rajada la qeey waxay filimkan lagu magacaabo Volvo 2 week indigiisa labaad markuu dhameystiro ka talaabi doon lacag gaarayso 150 kor uu ka talaabi doon laakiin hadda almost uu soo dhibay maadaama filimkan hadda 120 kor uu soo xaray ogaada filimkan saaxiibada qiimaha badan waa blockbuster taariikh ayuu noqday sidoo kale filimkan wuxuu ka fiicnaaday filimkii cusbaa lagu magacaabo Anig sida daraadeed waxaan fiirin doonaa filimkan lagu magacaabo Anig asna filimkan week indi saaxiibada qiimaha badan oo wuxuu qaatay liita ayuu qaatay hadda shabakada Box Office India ay shaac ka qaaday saaxiibada qiimaha badan oo ka xunaa filimkan filim meel u socdo ma noqon doono maadaama saaxiibada qiimaha badan wadarta guud 3 maalmood kaliya oo soo xaray 5 kor bar meeshaas aan ka fahmi karna filimkan waxa ka fiican Volvo 2 oo week indigiisa labaad ka in ku dhow 20 kor ayuu soo xaray saaxiibada qiimaha badan shabakada Box Office India waxay shaac ka qaaday filimkan Anig maalintiisa kooda wuxuu keenay lacag gaarayso 1.25 kor sabtidii wuxuu keenay 2 kor axadii wuxuu keenay 1.25 kor wax oo sarakac ah muusa sameeyay wadarta guud 3 maalmood filimkan lagu magacaabo Anig wuxuu soo xaray lacag gaarayso 5 kor bar taasoo ka dhigan saaxiibada qiimaha badan shoog ama naxtin sida daraadeed saaxiibada qiimaha badan Bollywood ka markaan dhiiqa ay markala dhex fadhiya sidoo kale filimkan Anig wiilka lagu magacaabo Ishmaan Qorana hogaamiyay wuxuu noqon doonaa filimkan asna mid dadka qaada doona xaloo fiirin doona saaxiibada qiimaha badan jamacada nagu soo foodle iyo filimka lagu magacaabo Birfraaj oo hogaamiyay Akshay Kumar iyo waxyaabaha la imaado laakiin hadda filimkan Anig saaxiibada waa ku deeqana u dhex fadhiya had kuma santiin saaxiibada daawashada muuqaalkan halkaas inagu dhan barnaamijkeena khibaraadka aflaamta wararka ugu dambeeyay haday taa markii kuugu horeeyso boqon channelka subscribe noo saar sidoo kale ilowin inaa muuqaalka like noo saarto aragtada comment noo gareeb hadaa kamid tahay saaxiibada horona jooxan ka codsanaa muuqaalka share si saaxiib wanaagsan adigoo kale channelka ugu soo bira inta barnaamijka mid ku kulmeeno amaana Allah salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh